Assalaamu calaykum. Waa dabiici in dhalin badan oo Soomaaliyeed oo dadka filimada ku badan ee garaadkooda xumbada yar ku jira marka ay maqlaan qof sheegaya in gaaladu ay islaamka u fikireen oo dhagar u maleegeen oo in uu dib u soo kaco ay kala dagaalamayaan iyaga oo ay hortaalo xaqiiqadii ahayd gumaysiga qarniga ku dhadhawaa kala qaybqaybinta dalalka islaamka xuduudaha uu kala qayday iyo waxyaabaha la midka ahi ay yiraahdaan war cidina wax kuguma falaysee maxaa lagaaga fikiraa dawladaha horumaray iyaga dinahoodii ka badin waayay balse waxaynu soo qaadanaynaa asxaabtaas buugiyare uu qoray Jalaal al-Caalim oo ciwaan uga dhigay qaadatul qarb yaquluuna damiru al-islaam wa abidu ahlah yani madaxda reer galbeedku waxa ay leeyihiin burburiye islaamka oo baabi'iye dadkiisa isagoo soo qaadanaya waxay gaalidu inaga yidhaahdeen ka muslimiin ahaan iyo waxa ay nagu sameeyeen ka muslimiin ahaan iyo markasta oo ay naga adkaadeen oo naga gacan sarreeyeen meeshay nagala dagaalameen iyo sida inoo galeen waxa uu soo qaadanaya qisadaynu hore ugaga faaloonay sidii ay reer Isbaanish u galeen muslimiintii Andalus iyo sidii ay ciidamadii Napoleon uga badbaadiyeen dadkaas oo hore ayaynu iyada u soo marnay oo u laaban mayno waxa uu ku xigsiinayaa Xabashida isaga oo leh Xabashida ayaa qabsatay Eritrea iyaga oo kaashanaya Faransiis iyo Ingiriis markiiba dhulkii beeraha ahaa waxay ka qaadeen dadkii lahaa oo dhulgoos ahaan ayay u siiyeen dad Xabashi ah dadkii xaq u lahaana shaqaale ayay uga dhigeen iyada oo qofkaas Xabashiga ah beeraleydaas isagu uu dhulkoodii ku adoonsanayo uu xaq u lahaa saacada uu doono sida uu doono inuu u dilo waxana ay sameeyeen xabsi wadareedyo ay muslimiinta Eritrea ku jeedali jireen jeedal miisaankoodu 10 kilogram yahay hadda waa jeedal miisaankiisu 10 kilogram yahay oo bini'aadmina la dhacayo waxana ay ahayd intaan Xayla Salaasi qabsan ee markii uu Xayla Salaasi qabsaday waxa uu dejiyay qorshe 15 sanadood gudahood muslimiinta deegaanadaasba lagu soo afmeerayo waxana uu kaga horbootay qorshahaas oo laabta iskaga garaacay Koongareeska Mareykanka hortiisa waxana uu ka sheekaynayaa wax qof muslima oo damiir leh aanu akhriyi karin inuu cid uga sheekeeyo daaye halkaasna qodobkaas u dhaafi mayno waayo waxa uu ka sheekaynayaa wax qalbigu ku xanuunayo waxa uu gelayaa dhanka Hindida isaga oo leh 1970kii markii ay Hindiyada aynu jecelahay ee filmadeeda markay soo baxaan baaf Soomaaliga u tarjumanaa ka adkaatay dawladda Islaamka ee Pakistan bal hadda u fiirso cadaawada Islaamka loo hayaa inay dal iyo dhul iyo khayraad xataa ka weyn tahay waxa ay dishay oo leysay 10,000 hadda waa 10,000 oo ah aqoon-yahanadii caalamiyada ahaa ee sheegana ee farta la isugu fiiqi jiray ee Sheekh Mustafa Ragal midka ahaaya 100,000 oo ardaydii maxadada islaamka ah dhigan jirayna way dishay oo ka dhameysay oo madaxay ka gurtay in fikir islaamiga ay la soo kacayaane waxay leysay shaqaalihii dawladda ee ummadda hulwadeenkeeda u ahaa waxay xidhay 50,000 oo caalamiyadii aqoonta ku sheegana intii la laayay intii ka soo hadhay rubuc milyan يعني 250,000 oo muslimiintii Hindiya ka soo yaacday ee Pakistan tabridagtay ahaydna way gumaatay oo cagta ayay marisay Hindiya ciidamadaas Hindiyana waxa ay deegaanadaas ka dhaceen hanti dhan 30 bilyan hadda ma aha 30 milyan ee waa 30 bilyan oo rubi balse markaad filim Hindiya ka daawanayso Hindigu mar walba waa ka cadaalada iyo wanaagga doonaya ka fitno walaha ee dalka Hindiya qarxinaya ee dibaya ee waalaya ee waajibka tahay in la dagaalamaana waa Pakistaaniga dhankaas waa nolosha khayaalka ee filimada iyo xogaha dadka khayaal ku noolka ah balse dadka xaqiiqo ku noolka ah xogaha dhabta ee daadayaan qalbigoodu dareemaya waa kuwan yani Hindiya marka waxay noqonaysaa hashi geela cunta ee cabaada waxa uu soo qaadanayaa haddii ay ina soo mareen dagaalo la oran jiray Macatibley oo ay ku soo qaadeen Kristanku Qudus oo aynu ku hoobannay inagu waynu ilaawnay markii uu Salaaxudiin ka saaray Falastiin balse iyagu ma ay ilaawin janankii Alimbe ee Ingiriiska ahaa markii uu dagaalkii koowaad khilaafada Cusmaaniyadda ka saaray Falastiinna inta uu dhaxda isqabtay oo Qudus isdhex taagay ayuu yiri maanta ayay dhamaadeen dagaaladii Macatibleydu al-yawm intahat al-hurub as-salibiyya ومدة 7 إلى 8 qarni ah marka uu sidaas leeyahay ee dagaaladaas ay muslimiintu ilaaween uu ku faanayo inay maalinka soo afmeermeen intaas aynu inagu ilowsanayna isaga waxa ay ahaayeen waran ku taagan sidii uu inooga adkaan lahaa ee inoo qabsan lahaa waxa uu soo qaadanayaa isla mowqifkaas mid la mid ah oo Olimbigaas Ingiriis ayuu ahaaye janan kale oo Faransiis ahaa oo ahaa kii qabsaday Suuriya uu isaguna tagay qabrigii halyeeyigii Salaaxudiin uuna laaday oo ku yiri تو Salaaxudiinow waa nagan oo soo noqonaya yani
cadaawadda ninkaas Faransiiska iyo kaas Ingiriiska waday inay khayraadka caalamka islaamka boobaan inay ka weyn tahay oo cadaawad taariikhi ah waday halkaas ka garo halka dhalinteenan in badan oo kamid ahi ayba taagan yihiin innaga dad xuna oo qabyaaladaynayna ee cidina inooma fakirin oo inama dhagraysayeenan dadka eed saarin iska dayay xataa ku koobnaadaan cadaawadahoodaas ay inoo hayaan dagaalada macatablayda ee Kristanka dagaalkii 1967kii ee Carabta iyo Yuhuudda Faransiiska dhexdiisa dadkii Faransiiska ahaa ee Kristanka ahaa waxay siteen boodhar iyagoo mudaharaadaya iyo sanduuqyo ay ku ururiyaan tabarucaadka boodharkaasna waxaa ku qornaa 2 weedhood oo ah la dagaalama muslimiinta labada weedhood oo kaliya waa Faransiiska wadanka maanta sheeganaya inuu ilbaxnimo iyo horumar adduunka u wado ka 67kii ay dadkiisu sidaas u dhaqmayeen waxa la yaab leh in 4 maalmood gudahood ay ku ururiyeen dadkaas reer Faransiis ee Kristanka ahi tabarucaad ay Yuhuudda oo cadaawadda ay muslimka isu hayaan mid ka xun isu hayaan ugu deeqayaan si ay ula dagaalamaan Yuhuudda muslimiinta iyaga oo kule hantidaasna tiradeedu waxa ay dhammayd isu diyaariya xisaabtaas 1 milyan yacni 1 bilyan oo faranka Faransiiska ah oo 1967kii jooga ayaa 4 maalmood gudahood ay dadka Kristanka ee reer Faransiisku soo ururiyeen si Yuhuudda oo cadaawad xun ka dhaxayso ay ugu caawiyaan oo Yuhuuddaasi ay uga dagaalamaan muslimiinta waad aragtaan baan filayaa sida waxba aan loola gabanayn innagana ay dhalinteenu taagan yihiin yaan laydin waanin cadow baad leedihiin lahaynina waxa uu soo qaadanayaa hadal ka soo yeedhay ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee Gladstone oo ahaa inta ay muslimiintu quraankaas haystaan ay akhriyayaan ma awoodayo reer galbeed inuu qabsado muslimiinta sidoo kale waxa uu soo qaadanayaa hadal ka soo yeedhay xaakinkii Jazaa'ir ee Faransiiska ahaa oo ahaa Faransiisku ma gumaysan karo Algeria ama Jazaa'ir inta ay quraankan akhriyayaan carabidana ku hadlayaan labadaas marka aynu meesha ka saarno ayuun baynuna awoodaynaa inaynu talino labadaas qodob ee madaxda sarsare ka soo yeedhaya waxaad ka dhadhansanaysaa in wax kasta oo inaga iyo kitaabkeena iyo inaga iyo afkeena carabiga ee diinteenu ku qoran tahay la inagu kala jari karayo la sameeyo tii quraanka wali waxba way ka qaban kari laayihiin laakiin caalamka islaamkaba afka carabiga in badan ayay albaabada uga soo laabeen waxa uu soo qaadanayaa in baaqiyadii ugu waaweynaa ee shuuciyadda ay ka mid ahaayeen suuragal ma aha inaynu shuuciyadda seeska u dhigno degaan islaam innagoo aan islaamka khadka ka saarin waana sababtii ay dowladdeennii shuuciga ahayd u leynaysay culimada diinta qur-aankana qaarna u mamnuucday in la fasiro qaar kalena u ogolaatay mana ahayn wax dowladda Soomaaliyeed ka soo yeedhay ee fikir guud oo shuuciyaddu ay sidatay ayuu ahaa waxa uu soo qaadanayaa hadal uu yidhi mid ka mid ah hogaamiyayaashii ugu horreeyay ee dowlad ku sheegtay Israa'iil oo la odhan jiray David Ben-Gurion oo ahaa waxa ugu weyn ee aan ka cabsanayaa waa in caalamka islaamka uu inaga ka soo baxo Maxamed Cusubi aniga oo weedhan ninkan tixraacaya ayaa markaan shakhsiyad islaam sida Maxamed al-Faatix ama Suleymaan al-Qaanuuni soo hadal qaado ama barnaamij uga soo diyaariyo aan ugu dambaysiiyaa waxa la inaga sugayaa qofkii noqon lahaa Suleymaan al-Qaanuuni ama Salaaxudiin al-Ayyuubi waxa uu soo qaadanayaa qoraa Yuhuudi ah inuu yidhi markii Israa'iil la aasaasay higsiyadeeda ugu waaweyn waxa ka mid ahaa in la arko Carabta iyo Yuhuudda oo iskaashanaysa Carabta iyo Yuhuudda oo isgarabsanaysa si qodobkaas looga dhabeeyana ay lama huraan ahayd hadduu fiirso si qodobkaas ah iskaashiga Carabta iyo Yuhuudda looga dhabeeyana ay lama huraan ahayd in qof kasta oo cadowtinimada Israa'iil ummadda Carabeed ku baahinaya laga qabto oo laga dhaxsiibo si aynu inaga iyo Carabi isugu laab xaadnaano waadna aragtaa markii Carabta ay ka dhamaadeen ama ku daba yaraadeen dadkii hadalka odhan ogaa in dad Sacuudiga jooga ugu baaqayaan kan xunay Yuhuudda haysta inuu sida cayayaanka u buufiyo Falastiiniyiinta la sheegayaba waxa sidoo kale uu soo qaadanayaa mid kale oo gaar ah hadal uu yidhi oo ah sababta ugu weyn ee caalamka galbeedku waa cabsida uga qabo islaamku waa in sidii uu Maka uga soo ifbaxay aanu tiro ahaan u yaraan marnaba ee islaamku uu mar walba u baahayay si ay uga dhabeeyaan cadaawaddaas islaamkana markii uu hogaamiyihii ciidamada Ingiriiska ee qabsaday Suudaan markii dambe yimi waxa uu qufay oo dib u soo fadhay qabrigii Mahdigii Suudaan ee hore uga xoreeyay Suudaan Ingiriiska janankii Ingiriis ee Gordonna dilay kadibna inta uu qalfoofkii madaxiisa ka jaray ayuu u diray qalfoofkii Mahdiga mid Ingiriiska jooga oo ku yidhi sigaarkaaga seesaraad ku bakhtiiso ka dhigo madaxii Mahdigii Suudaan cadaawadda xataa qalfoofkii qabriga dhex yaalay ka fakan waayay ayay reer galbeed u hayaan islaam waxaana aad ka dareemaysaa mahmaahdii ahayd ilko abeeso hoos ka xidhiidhsan gaalo waysayaan oo cadowga ugu xumi waa iyaga
iyaga ayaana isla dhiban balse marka ay qadiyad islaam noqoto meel ayay inooga soo wada jeedaan. waxaa sidoo kale uu soo qaadanaya hadal ka soo yeedhay mid ka mid a madaxda gaalada isaguna oo ahaa midnimada islaamku way hurudaa hadda balse ogaada in cid kasta oo hurudaa ay marun baraarugto oo toosto. haddaba waxaan xogahan u soo qaaday oo buuggaas uga soo dheegay in qof kasta oo dhallin ah oo maanta nool oo aaminsan inaanay cidina dhagrayn cidina waxba u geysanayn ee uu iska noolaado oo reer galbeedku siday maanta ula dhaqmayaan dadka muslimiinta ee dusha isaga muujinayaan iyo filmadooda ay isku macaanaynayaan aad u daawaday oo uu arko dagaalka lagula jiraa inuu yahay kaa ah in halyeeyadii iska dhiciyey madaxoodii Suudaan laga qaaday oo Ingiriiska loo diray oo sigaar lagu bakhtiisanayay oo seesar laga dhigtay. ma garanayo qodobkaas wax ka badan oo aan ugu sifeeyo cadaawadaas dadkii noolaa dhaaftay ee kuwii dhintay qubuuraha kaga daba tagtay. balse haddii aad u aaminsan tahay gaaladu inaanay cadaawad kuu hayn maadaama aad waddankooda tegayso oo baasboorkooda ay ku siinayaan oo kula qoslayaan abti garaadkaaga dib ugu noqo. waxaana aad ogaataa inay baasboorka ku siiyaan ama dalkooda aad ku noolaato dantaad adigu ku qabto tobanlaab khidmada ay iyagu kugu qabaan ayna ka danaysanayaan. waxaanaad xasuusnaataa cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluulba inuu nabiga salaad walba jimaaca kula tukan jiray mararka qaar asxaabta ugu mudan uga soo horreyn jiray masjidka haddana uu ahaa madaxa munaafiqiinta. wassalaamu calaykum.